كحرنا واجبي يعني أو كدقوا وهالكاجا وررك حقاق حالدها بريقة دحي أينو إيقنو يدو ولي حالدو أي تهي بريقة دحي أيا مدحوينها أمريكا كدونالد ترامب waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in dagaalka Iran uu soo afjarmi doono dhawaan isagoo isla markaasna qiray in ciidamada Mareykanka ay haysato caqabad la xiriira kaydka qaar ka mid ah noocyada hubka casriga ah isagoo la hadliyay dadka wararka fidiya xilli ku sugnaa aqalka cad Trump wuxuu sheegay in Iran aysan awoodi doonin wasidalku uu yiri inay dagaalka sii wado muddo dheer waxaan u malaynayaa inuu dhammaan doono si dhaqso ah dagaalku uma malaynayo in ay sii wadi karaan muddo dheer dagaalka ayuu yiri Trump mar wax laga weydiiyay dagaalka hadaladiisan ayaa waxay yimaadeen kadib warar isdaba joog ah oo ku aadan in Mareykanku wajahayo cadaadis isa soo taraya oo ku saabsan kaydkiisa hubka intii uu socday dagaalka 5 bilood qaatay gaar ahaan gataalada ridada dheer iyo nidaamyada difaaca cirka Trump wuxuu ku andacooday in Mareykanku uu haysto kayd aad u badan oo ka mid ah noocyada qaar ee hubka balse wuxuu qiray in kaydka noocyo kale culays uu ka jiro waxaan leenahay noocyo rasaas iyo hub aad u awood badan kuwaasi oo aan u haysano kayd aan xad lahayn ama ku dhow xad la'aan waxaana jira noocyo kale oo xaaladdu ay yar ciriiri tahay ayuu ku andacooday madaxweynaha Donald Trump dhanka kale ila ku dhow dadaalada dhexdhexaadinta iyo saraakiil la hadlay warbaahinta Mareykanka ayaa waxay sheegeen in Washington ay qorsheynayso inay qaado go'doominta dhanka badda ee dekedaha Iran iyadoo sidoo kale laga yaabo inay saarto ogolaansho ku meel gaar ah ama ay soo saarto ogolaansho ku meel gaar ah oo la xiriira dhoofinta shidaalka Iran wararkan ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli Trump uu muujinayo rajo wanaagsan oo ku aadan wada hadallada isagoo hadaladii dhawaan uu ka jeediyay aqalka cad ku sheegay in arrimuhu ay si wanaagsan u socdaan isla markaasna heshiis uu dhow yahay dhanka badda cas iyo baabalmadam xog ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayna ka soo xigatay shirkadda Kepler ee la socota dhaqdhaqaaqa maraakiibta ayaa waxay muujisay in 26 markab shalay oo khamiis ah ay ka gudbeen marin biyoodka baabalmadam ee badda cas halka maalintii ka horeysana ay 19 markab halkaasi ka gudbeen xogta ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in toddobaadkan oo kaliya 6 markab oo shidaalka ceeriin ay ka gudbeen xagga marinka Hormuz halka tirada guud ee maraakiibta marinka Hormuz ilaa iyo hadda galay ay tirada tahay 21 markab kuwaasi oo lagu soo waramayo dhankooda badankooda inay mareen dhinaca Iran taasi oo ka macnaa in ogolaanshaha Iran ay haysteen maraakiibtaasi waa hagaag markan waxaynu eegaynaa dhanka Israa'iil oo warweyn saaka uu ka soo baxay waa tahay warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in madaxa hay'adda sirdoonka ee Mossad uu xilalkii ka xayuubiyay madaxda laba waaxood oo ka tirsan hay'adda kadib qiimeyn gudaha oo lagu sameeyay waxqabadka cutubka sirdoonka sida uu baahiyay telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay saraakiisha shaqada laga eriyay ayaa lagu eedeeyay inay ku guuldareysteen fulinta howlgalo la xiriira qorshayaal lagu doonayay in lagu weeqo nidaamka ka taliya Iran warbixintu ma shaacin magacyada saraakiisha xilalka laga xayuubiyay iyo faahfaahinta howlgalada la sheegay inay fashilmeen kanaal 12 ayaa sidoo kale waxa uu horay u sheegay in ku-xigeenkii hore ee madaxa Mossad xilka laga qaaday iyadoo lagu eedeeyay inuusan gaarin yoolal loo asteeyay mashruuc ayaa waxa la sheegay in loo qoondeeyay miisaaniyad dhan 1 bilyan oo lacagta Israa'iil ee shakalka loo yaqaan taasi oo u dhigata qiyaastii 344 milyan oo dollarka Mareykanka ah dhinaca kale warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in Mossad ay hub siisay maleeshiyad Kurdi ah iyadoo qorshahaasi la sheegay inuu qayb ka ahaa dadaalo ka dhan ah Iran wararka ayaa waxay kaloo sheegayaan in CIA-da Mareykanka ay door ku lahayd qorshahaasi balse markii dambe la hakiyay xagga Iran haddii aynu eegno Iran ayaa waxay ka digtay cawaaqibta halista ah ee ka dhalan karta si ballaarinta iyo casriyeynta hubka nuclearka ee Mareykanka iyadoo sheegtay in siyaasadda Washington ay wali qatar ku tahay bini aadamka
tobanaan sano kadib markii maraykanku uu noqday dalka keliya ee isticmaalay hub nuclear una adeegsaday dagaal bayaan ay soo saartay ergada joogtada ee Iiraan u fadhida magaalada Vienna ee caasimadda Austria xarunta hay'adda xakamaynta hubka nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA kuna beegnayd sanad guuradii duqaymihii nuclearka ee maraykanku uu ka fuliyey Hiroshima iyo Nagasaki ayaa waxaa lagu sheegay in masiibooyinkaasi ay xusuus u yihiin saamaynta ba'an ee hubka nuclearka Iiraan waxay sheegtay inay ka hortagtay in ay samaysato hub nuclear waxaana sidoo kale ay tilmaamtay in ka hortagga masiibooyin la mid ah kuwii Hiroshima iyo Nagasaki ka dhacay ay u baahan yihiin ka go'naansho dhab ah oo ku aadan hubka dhigista nuclearka iyo dhismaha adduun xor ka ah hubka wax gumaada bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Iiraan oo xubin ka ah heshiiska ka hortagga faafitaanka hubka nuclearka ee magaciisa loo soo gaabiyo NPT ay taageersan tahay ciribtirka dhammaan hubka nuclearka isla markaasna ay difaacayso xaqeeda sharciyeed ee isticmaalka nabadeed ee tamarta iyo cilmiga nuclearka waxa kale oo lagu eedeeyay Mareykanka inuusan muddo 10 sano ah fulin waajibaadkiisii ku saabsanaa hubka dhigista nuclearka Iiraan marka arrintan waxay u sameynaysaa qobarada leedahay bacdama la hadal hayo dagaalka Mareykanku inuusan ku guuleysan suurtagalna ay tahay inuu isticmaalo nuclear marka bacdama la joogo sanad guuradii xilligii Mareykanku Japan uu ku weeraray nuclearka ayaa waxay uga faa'iideysanaysaa adduunyada inay xusuusiso Mareykanku inuu yahay waddanka kaliya ee isticmaalay nuclear isla markaasna ku faanaya hadda in Iiraan loo celin doono casr jaahiligii marka fariin weeyaan leeyahay fariintan adduunyada la xusuusinayo annaga ma hay ula jeedaa Iiraan cidda halista ku ah adduunka laakiin waa cidda haysata nuclearka marka hadii la doonayo adduunka inuu noqdo mid xasiloon waa in hubka dhigista nuclear la sameeyaa waa hagaag qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaase naga xasuusa daawade inaad la socotaan inaynu hawada gelinay kanaal cusub waa RTV halkaasna waxaa iminka ku jira barnaamijyo xiiso leh markaad dhamaysto barnaamijkan dib u daawo barnaamijyadaasi aad baad u mahadsantihiin laakiin aynu kanaalkaasna subscribe saarno si isla markaasna aynu anaga lafteena oo nagu noqoto arrinkaasi dhiirigelin oo shaqada aynu laba jibaarno waad mahadsantihiin jimc mubarak salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub Ameerika Asia